kusoo dhawaada cashar ka mid a casharadaan ku baranayna Microsoft Word. maanta casharkeenu uu ku saabsan yahay certificate ama shahaado qurux badan sida loo sameeyo. haddii aad casharkan ka faa'iidaysato oo casharkan aad si fiican maaragtay intaad u dhegaysato oo u daawato kadibna adigoo aad practical ku samayso oo practice garayso shahaadadan boqolaalka qurux badan baa samayn doontaa. marka hadhowdii waxaa kuu baaqanaysa inaad cid kale halka waqtiga ku bixinaad inaad qof kale u tagto oo qofkaas time ku bixiso aaditaankiisa. sidoo kale waxaa ku baaqanaya lacagtii aad ku bixin lahayd oo dhisaynka noocan oo kale lacag baa lagu sameeyaa, freelance kuma sameeyo. marka lacag iyo waqti ayaad maar save garayn doontaa haddii aad hadda ka faa'iidaysato casharkan. marka waxaan rajaynayaa inuu noqon doono cashar dad badan oo ay ku cusub tahay ama doonaya ama u xiisa qaba inay bartaan qaabka shahaado loo sameeyo ay ka faa'iidaysan doonaan baan rajaynayaa. marka casharkeena si toos u guda gelaynaa. waxaan ka bilaabaynaa, waxaan tegaynaa layout, kadib waxaan doonaynaa orientation, waxaan doonaynaa landscape, inta kadib waxaan tegaynaa margins, kadib waxaan soo doonaynaa narrow markaan doorano warqaddu qaab kale noogu soo baxaysaa. halkaa markaan marayna marka waxaan sameynaynaa frame baan u sameynaynaa warqadda. waxaan tegaynaa design, kadib waxaan soo dooranaa page borders. halkan sare waa styleka ay noqon doonto warqadeenno, frameka warqadeena. marka nooca doonto baa kasoo doonaysa, tusaalaan kan noo soo door. halkan waxaan ka bedeli kartaa midabka framekaaga uu noqon doono ayaad maaragtay ka dooran kartaa. tusaale ahaan cagaar noo soo door ama green. halkan waa sizekeeda ama werti waa ballaceeda oo kale. tusaale ahaan inta ballaceeda uu noqon karo mid uu noo soo qaad, tusaalaan kaloo kale noo soo qaad ama noo kordhi xoogaa waxaa naga dhigta kan ugu sarreeya. inta kadib waxaa ku dhufanaysaa okay. sidaa waxaa noogu samaysmay framekii warqadeenna ayaa maaragtay sidaa inoogu samaysmay. waxaad tegaysaa halkan dhexe, kadib halka waxaa ku qoraysaa magacii meesha laga bixinayay warqadan, ama jaamacad ama iskuul ama tuition ama whatever, dugsi quraan. tusaale waxaa noogu qoraysaa college of technology oo kale tusaale ahaan. kadib waa haylaad garanaysaa, waxaad wax ka bedelaysaa farta uu ku qoran yahay ayaad maaragtay wax ka bedelaysaa. kadibna xoogaa waa weynanaysaa. intaa markaa samayso waxaad taabanaysaa control E si aad dhexda u geyso. kadib hoos baad soo degaysaa. halka waxaa ku qoraysaa warqadani waxay ku saabsan tahay certificate of completion. tusaale ahaan hadda dhammaynta inaad yacni koorso dhammaysatay oo kaleeto warqadda caddaynaysa. warqaddan waxbaa ka yara bedelaysaa. tusaale ahaan meeshan oo kale ayaad laga yaabaa inaad wax ka bedesho, ama qaybta dame oo kale wax ka bedeli kartaa fointigeeda. marka qaybtaa jeceshahay halkan oo kale tusaale ahaan haddaan wax ka bedelo saas inoo noqonaysa certificate of completion. xoogaa waxaan ku daraynaa farta oo aynu xoogaa waaweynaynaa. intaa kadib waxaynu sameynaynaa, waxaan soo degaynaa hoos, waxaan ku qoraynaa magacii ardayga meesha lagu qori lahaa way name. tusaale ahaan ardaygii shahaada la siinaya oo kaleeto warsame xaaji cabdi oo kale waa tusaale. kadib waxaad dooranaysaa magaca meesha ku qoran yahay. waxaadna bedeli doontaa ama aynu bedeli doonaa fointiga uu ku qoran yahay, magacuu ku qoran yahay qaabkan oo kale aan dooranay tusaale ahaan. intaa kadib waxaad samaynaysaa hoos baad u degaysaa. halkan marka waxaad ku qoraysaa, halkan waxaad ku qori doontaa halkan waxaan ku qoraynaa for successfully completing. haye wuxuu dhameeyey qofkan. tusaale ahaan waxaan leenahay marka wuxuu dhameeyey diploma of technology. tusaale ahaan iska dhan diploma of technology. intaa kadib intaa markaan soo waxaan u degaynaa hoos. kadibna waxaynu qoraynaa xilligii uu qofkani uu dhameeyey ama taariikhdii ayaynu ka qoraynaa.
waxaan leeyahay dash datekii. intaa kadib hoos baan u degaynaa. halkan waxaan ku qoraynaa markaa saxiixii qofka shahaadada bixinaya ayaynu ku qoraynaa. tusaale ahaan marka saxiixaasu wuxuu noqon karaa macalinka, wuxuu noqon karaa directorka meesha. waxaan dhahaynaa tusaale ahaan signature of the director. saxiixa directorka. intaa marka aan sameyno marka waxaan wax ka bedeli doonaa farta ay noogu qoran tahay ama fointiga uu noogu qoran yahay warqaddu. tusaale ahaan magac oo kale saasaan u deenaynaa. qaybta labaad baan imanaynaa. qaybtan waynu ku sameynaynaa, waxaynu bedelaynaa fointiga ay ku qoran tahay. noocaa nooga dhig tusaale ahaan. haddii noocii ku cajabay baa ka dhigan kartaa. kadibna waynu yaryaraynaynaa. marka aan yaryarayno waxaynu sameynaynaa xoogaa wax ku sii dari karnaa oo waynu yaryarayn karnaa. intaasoo kale aan ka dhignay. tanaan imanaynaa. waxaan ka bedelaynaa qaabka ay ku qoran tahay ama fointiga ay ku qoran tahay ayaynu ka bedelaynaa. qaab kaloo kale aan ka dhignay. tusaale ahaan diploma of technology ayaynu qaabkaasanu ka dhignay. intaa kadib waxa aynu sameynaynaa waxaynu bedeli doonaa marka tan hoose oo kale imow, iyadana wax ka bedel, qaabkaa ka dhig. kadibna waxaan sameynaynaa waynu yaryaraynaynaa. saanaan ka dhigaynaa. geeskaasaan geynaynaa. hoos baan waxaa isu yara dejinaynaa. control plus r geeska igii. geeska markaan geysano tan oo kaleeto iyadana waxaan ka bedelaynaa fointigeedaan bedelaynaa. waxaan nooga dhigtaa qaabkan. farteedana xoogaa yaryaray. saa nooga dhig. intaa markaas sameyno tan xoogaa noogu dar. maya xoogaa soo yaray oo yaro weynaatay. intaa kadib waxaynu sameynaynaa marka kalaradii ayaynu bedelaynaa. tusaale ahaan kan koowaad oo kaleeto kalarkiisa waxaan ka dhigi karnaa noocii aan jeclaano baan ka dhigi karaa. tusaale ahaan kan oo kale nooga dhig. magaca iyo isaga ayaynu isku far ka dhigaynaa oo aynu isu ekeysiinaynaa. waxaa kale oo aynu sameynaynaa allahu mustacaan. waxaa noo haray marka halkan ayaynu waxaynu sameynaynaa space baynu sameyn ama xariiqin si qofka directorka hadhowda ula raaco, saxiixa ula raaco. marka waxaynu tegaynaa insert. kadib waxaynu tegaynaa, waxaynu soo furaynaa batoonkan ku qoran tahay shapes. laymankan mid ka mid ah ayaynu soo qaadanaynaa. halkan dusheeda ayaynu qaadaynaa, waynu ku sawiraynaa. marka waxaa dhici karta laynku inuu kaa qalloocdo. marka si uusan kaga qallocan oo straight line kugu noqdo, shifti baa la taabanaysaa. eeg hadda shifti baan hayaa, kor uma leexan karo. marka qaabkaasaad iyadana usoo gelinaysaa. qaabka markaa usoo geliso laynka waxbaa ka bedeli kartaa. tusaale ahaan daashdaashtan dateka nagu qoran yahay oo kale ayaad maaragtay ka dhigi kartaa. tusaale ahaan waxaynu sameynaynaa tusaale ahaan kan xoogaa yar noogu yaro dar, noogu yaro weynay. waxaynu sameynaynaa marka laynkaynu dooranaynaa, dhagdhag ayaynu siinaynaa. kadib halkaynu tegaynaa shape outline meesha ku qoran tahay. meeshaan dash ay ku qoran tahay ayaynu kasoo dooranaynaa. marka oka laynka wuxuu noo noqday dash. intaa kadib intaa markaynu sameyno waxaynu sameyn karnaa frameka oo kale waxbaynu ku dardari karnaa. noocyo qaabab kale aan ku dardari karaa ama decoration dheeraad aan ku dari karaa. laakiin waxaynu sameynaa halkan waxaan ku sameynaa decoration yar. waxaan tegaynaa insert. kadib waxaan tegaynaa shapes. kadib waxaynu soo dooranaynaa kan ay ku qoran tahay 32 ama kan 24 ku qoran tahay, yacni shape ka mid shape-ka noocaasa ayaynu soo qaadanaynaa. tusaalahaan kan oo kale noo soo qaad. kadib halkanaynu saa ugu sawiraynaa. xoogaa kor yara qaad, geeskaa gey. sidaa markaan idhaahno isla meeshii batoonka shapeska ayaynu furaynaa. arrowgan oo kale noo soo qaad. arrowga ama falaarta markaa soo qaato saas u sawir. kadib rotate garay. markaad rotate garanayso ama aad rogayso meesha geeska abaad saa u taabanaysaa. kadib marka ay qaabkaas kuu noqoto falaarta qaloocan ayaad dhinaca rabta u jiidaysaa. noo soo qaad geeskaa noo dhig. geeska marka saa u dhigto inoo koobey control c v waynu badinaynaa ama waynu tarminaynaa. tanna qaab kale u jeedi, gees kale saa ugu jeedi.
marka aan rotate garanayo waa ujeedaan qaabka meeshaasaan qabanaya geeskaas baan tegayaa marka ay kaarsorku ii noqdo warqadda ama falaarta jiifta qalloocda ayaan saa u wareejinayaa kadib waa soo qaadayaa halkanaan keenayaa sidanaan maaragtay u arranji garaynayaa tusaale ahaan hadda xoogaa way qalloocdaa saan oo kale kan kale iyadana xoogaa saa u arranji garay tanna sidoo kale saan oo kale ayaan leeyahay xoogaa waxay ku xiran tahay qaabka maaragtay aad maskax u geliso ayay ku xiran tahay tan kale tan weyn oo sare oo kale waa weyn xoogaa waa inoo weynayn kartaa si ay qurux noogu soo baxdo intaa kadib waxaan samaynaynaa sheebka sare ama sheebka weyn ayaynu dooranayna dhagdhag baynu siinaynaa kadib meeshaan ku qoran tahay sheeb fiil ayaynu waxaan doonaynaa waxaynu soo gelinaynaa kalarka aan u baahannahay tusaale kalarkaasaan ka dhignaa makanaan ka dhignaa makanaan ka dhignaa makanaan ka dhignaa tusaale hadda aanu buluuga noocaas oo kale abaan dooranaya meeshaan ku qorantay shape outline ayaa maaragtay iyadana soo dooranaya waxaan leeyahay no outline kadib kuwan ayaan mid mid u dooranaya laba jeer baa dhagdhag siinaysaa meeshaan ku qorantay shape fill waxaynu ku buuxinaynaa isku kalarkan kii hore ku buuxinay oo kale shape outline meesha qorantay waxaan leenahay no outline kan kalean dul tegaynaa dhagdhag waxaynu ku dhifanaa shape fill waxaynu dooranaynaa kalarkii aan kuwii hore kusoo buuxinay oo kale meesha ay ku qorantay shape outline waxaynu dhahaynaa no outline intaa marka aan samayno sidaa waxaa nagu soo baxay decoration yaroo xoogaa iska diyaarsan kadib waxaan samaynaynaa inserti baan tegaynaa shapes baan soo dooranaynaa waxaan soo dooranaynaa sheebabkan mid ka mida tusaale ahaan goobadan oo kale ama circlekan waa soo qaadanaysaa qaabkan ayaad usoo qaadanaysaa waxaad dhigaysaa dhexda sheebkaagi hore sheebkaagi weyna dhexdiisa ayaad dhigaysaa intaa marka aad samayso isagana waxaad siinaysaa dhagdhag shape fiilka caddaan noogu buuxaa meesha waa aynu ku fiil garaynay ama already ku fiil garaysnaa shape outline-kana waxaynu samaynaynaa no outline ayaynu leenahay waxaa marka sidaa noogu soo baxay shape yaroo decoration oo qurux badan oo badanaa ah shabaabka shahaadooyinka maaragtay lagu sameeyo intaa kadib kalarada oo kale waxaa ka bedeli karnaa tusaalaan kalarkan oo kale cagaar baan ka dhigan karaa qaabkan oo kale aan ka dhigan karaa tusaale ahaan magac oo kale waa raacsiin karnaa yacni qaabkan oo kale waa u samayn karnaa hadba inagu sida aan jecelnahay ayaynu maaragtay u samaysan karnaa marka adiga qaabkii hadba colorkii aad jeceshahay ayaa maaragtay u samayso mar haddaad dhisanka fahanto kalarka noocaad doonayso baad u samaysanaysaa intaa waxaa noogu eg marka shahaadadan oo aynu ku samaynayna Microsoft Excel waxaan rajeynaya inaa wax ka faa'iideen si aan usoo badano casharada noocan oo kale ah oo bulshada wax ka faa'iideyso muuqaalka like sii saar asxaabtadan la wadaag asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu